السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhamaantiin meel kastoo aad joogtaan waan idin salaamaya kusoo dhawaada kanaalka Afifa Warsamo gacmo furan iyo qalbi furan haddaad awal nala joogtay waad ku mahadsantahay la joogaaga haddaad nagu cusub tahayna sidoo kale soo dhawaad ku faraxsanahay inaad nagu soo biirto maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago barnaamijkii ahay ila qorsheey waxaan isku dayaynaa maanta inaan wada qorsheysano bishan maanta kooda noo ah ee loolaya sidoo kale ka hor intaanan barnaamijkayga guda galin dhammaantiina waan idin hambalyaynaa meel kasta oo aad joogtaan sanad guuradii 62 ee xornimada Soomaaliya iyo sidoo kale midowga Soomaaliya iyo Somaliland meel kasta joogtaan waxaan idin leeyahay hambalyo sanadkan sanadkiisa Ilaahay nabad ha inagu gaarsiiyo intaas kadib ka hor inta aan bishan looliyo aanan qorsheysan oo aanan ka fikirin looliyo waxyaabaha aan samaysan karno waa inaan gadaal ugu milacsanaa bisheena idlaatay hadda maaragtay June yacni inaad ka fikirto waxyaabihii June ku hagaagay iyo waxyaabihii aan ku hagaagin iyo sidoo kale inaad ka fikirto waxyaabaha maaragtay wax ka bedeli karto mise maaragtay aad hagaajin yar aad ku samayn karto intaas kadibna u imaaw July inaad qorsheysato adigoo maaragtay samaysanaya waxyaabo qorshayaal cayiman oo aad gaari karto sababtoo ah haddaad maaragtay qorshe weyn aad samaysato waxaa laga yaabaa inaysan kuu suurtagelin mase sidii aad rabto aysan wax kugu hagaagin yacni qorshaha weynka ah qofka bini'aadanka wuxuu ku sameeyaa yacni dhiiranaan la'aan ayuu ku sameeyaa cabsi ayuu ku sameeyaa marka sidaas darteed wax qorshe weyn ah ha samaysan kaliya isku day qorshayaal yaryar oo aad maaragtay noloshaada micno ugu yeeli karto in aad samaysato sababta aan ku leeyahay qorshe samaysa ay waxay tahay qof kastoo bini'aadan wuxuu maalin kasta sameeyaa shaqo maaragtay routine ah oo maaragtay subax kasta markaad soo kacda aad samaynayso marka haddaad subax kasta shaqo isku mid ah aad samayso waxaa laga yaabaa inaad caajis dareento oo aad ku fikirto nolosha wax micno ma lahan subaxii markaad soo kacdo hal shaqo qabanaysaa habeenkii markaad seexato hal shaqo ku fikir yacni inaad saas ku fikirtaa laga yaabaa laakiin markaad bishaada July aad يعني markii rootinkaaga laga soo tago aad qorsheysato waxyaabo yar yar oo adiga naftaada aad ku horumarin karto maskaxdaada cilmigaaga aad ku horumarsan karto xirfadaada aad ku horumarsan karto xiriirada aad dadka la leedahay aad ku horumarsan karto yacni qorshayaal noocaas markaad degsato bil kasta waxaa laga yaabaa in aad dareento inaad maaragtay wax micnaha aad samaynayso mise noloshu ay dhadhan ku yeelato inaad dareento marka sidaas darteed isku day si aad rootinka uga baxdo yacni uga baxdo waxaan ka wadaa rootinka biskale aadan isku koobin inaad nolosha aad qorshayaal kale oo wax ku siyaadinaya aad samaysato intaas kadib balaan idinla wadaago yacni dhowrka qorshe aan leeyahay bishan maaragtay July mid koowaad ah horta waxa ay tahay inaan 2 kitaab aan akhriyo yacni 2 buug inaan akhristo xilliyadii hore ee markii samarkii hore waxaa laga yaab jiray bishii inaan 3 buug mise 4 buug aan akhrin jiray laakiin samarkan waxaa moodaa inuu samarkii hore mise xilliyadii hore oo iga bedelan yahay aniga oo howlahayga kala badan sidaas darteed waxaan naftayda aan maaragtay ku edbi doonaa inaan 2daas buug aan akhriyo sababtoo ah maaragtay markay culaysyo kala jiraan inaad qorshayaal badan samaysato ma ahan oo qorshayaashaas badan haddaad samaysto culaysyadii kale kaa jiray ayaad maaragtay ay ka mashquulinaysaa mise naftaadii cadaadis badan saaraysa marka mar walba wuxuu kugu badan yihiin waxyaabaha kale oo aad qorsheysanayso oo naftaada ku darayso inaa wax yar oo kooban oo aad xamili karto oo aad maaragtay kasoo bixi karto inaad ka dhigato marka 2daas buug aan qorsheysto bishan looliyo inaan akhriyo idan ilaahay qorshaha labaad ee bishan looliyo aan leeyahay ayaa wuxuu yahay inaan qaato 2 course oo online ah xaqiiqada jirta waxay tahay dhammaanteena iskuul aadnaa jaamacadan dhiganaa laakiin waxaa laga yaabaa hal course oo online markaad qaadato inaad ka baranayso cilmi ka baaxad weyn mase cilmi ka badan koorasyada aad iskuulka mise jaamacadda aad ka qaadanayso dhowrkaa sano koorasyada online-ka inta badan waxay ku siinayaan xirfada qaar ku siinaya qaarna waxay ku siinayaan fikir ka baaxsan midkii maaragtay galaaska lagaa siinay sababtoo ah marka galaaska aad joogto kooraska aad qaadanayso waxaa lagu taageeray wax assignment sidoo kale maaragtay shaqo guri leyli waxaasoo dhan lagu taageeray imtixaanaadkii yacni waxyaabahaasna qofka waxa ay ku kalifi karaan stress ay ku kalifi karaan qofku inuusan
xogta sidii la rabay uusan u dhuuxinay ku keeni karaan. Laakiin marka course online aad qaadanayso waxaad iska dareemaysaa free xora iska dareemaysaa. Xogtana adiga u baahan markan wax ma ahan oo lagugu qasbayo ma aragtay madaxa lagu galino waxaad adigu dooratay maada adigu dooratay haddaa fahmi weyso waa iska joojin kartaa mid kale haddana bilaaban kartaa waxaad dooran kartaa mid horey dad badani ma aragta uga hadleen oo reviews badana dooran kartaa. Marka course kasta online wax badanaad ka faa'iideysaa oo laga yaabo inaadan horey uga faa'iidin. Marka si aan xirfadayda u siyaasho mise maadooyin qaar faham aan ka haystay aan u siyaasho waxaan qaadan doonaa bishan 2 course oo online ah. Qorshaha saddexaad ee bishan Luulyo aan sameyn doono ayaa wuxuu yahay isbuuc kasta waxaan idinla soo wadaagi doonaa 2 video. Sababta aan mar walba muhiimad u saaro inaan video idinla soo wadaago waxa ay tahay qof walba waxa laga yaabaa inuu si uu nolosha ugu dareensan yahay micno gooni ah u leedahay mase micno gooni inuu dareemo marka uu waxyaabo qaar sameeyo. Marka markaan video idinla soo wadaago micno gooni ah nolosha ay leedahay. Sababtoo waxaan dareemaa wax anigu markii aan ku faraxsanay inaan sameeyo mise wax anigu markii wax iga bedelay noloshayda wax ka bedelay inaan ma aragtay adinkana idinla wadaago. Waxa micnaha ugu badan ii sameynaya waxay tahay qof intuu maanta muuqaalkayga samaysto oo Gmail ii soo diro mase Instagram-ka fariin iga soo diro oo yiraahdo Cafiifo videogaagas noocaasaan fiirsaday wax badanaan ma aragtay ii siyaadisay wax badanaa ma aragtay iska kay bedelay yacni wada cusub aan rabaa inaan yacni intaas waxa ii tahay micnaha ugu badan ay tahay. Sidaas si la mid ah bil kasta qorshaha aan sameynayo waa igu jirtaa inaan muuqaalo aan idinla soo wadaago. Sidaas darteed bisha Luulyo waxaan idinla soo wadaagi doonaa isbuuciiba 2 muuqaal oo aan dareensanahay waxtarkooda. Sababtoo waxaanan aniga hore u soo tijaabin mise aanan wax u arkin waxna ii tarin in lama wadaagayo oo aan dareensanahay qof kasta qalbiga u furan yahay mise qof kasta raba in uu ma aragtay naftiisa wax ka bedelo mise hareerihiisa ma aragtay waxyaabaha yaala oo wax ka bedelo mise uu isku dayo inuu hore u socdo video aan ogahay inay wax u taray ayaan idinla soo wadaagi doonaa hadii Ilaahay. Sidoo kale qorshaha kale bishan aan leeyahay waxay tahay mar dhow waxaa jiro dagal fiiro gaar ah la yiraahdo oo aan sameeyay dagalkaas asagana waxaan idinkula soo wadaagi doonaa isbuuc kasta 2 maqaal ima ay noqdaan videoga aan sameeyo maqaalan ka sameeyo mise maqaal ka madax bannaan videogaas oo mowduuc kala xambaarsan inuu noqdo. Marka asagana qorshahaygu way tahay inaan maartay maqaalkaas aan u sameeyo dagalka fiiro gaar ah. Sidoo kale qorshaha ugu dambeeya aan leeyahay bisha Luulyo waxay tahay subax kasta inaan 20 daqiiqo exercise aan sameeyo. Adigana wuxuu kula tali lahaa inaad sameyso 20 daqiiqo culeyska ma qaadayso culeysna kuma siyaadinayso. Laakiin waxa ay ku sameynaysaa waxay tahay adiga waxay ku siinaysaa firfircoon adiga waxay ku siinaysaa yacni tamar aad u fara badan. Qofku markuu dhaqdhaqaaq yar sameeyo wuxuu dareemaa inuu wax kale uu sameyn karo. Marka 20kaas daqiiqo waxaan adigana kugula talinayaa anigana ugu tirsanayaa waxay tahay in aanan nolol maalmeedkeena aanan gacaajisan mise ma aragtay haddaa samar ku jirto fasax ku jirto inaadan caajis badan aadan dareemin yacni dhaqdhaqaaq qofku markuu hore u sameyn jiray marka uu nasiino galo waxaa laga yaabaa nasiinahaas inay jirro ku noqoto. Marka waxyaabahaas dhan saa uga hortagno isku day inaa adigana 20 daqiiqo exercise aad ku darsato qorshahaaga anigana waa iigu jirtaa. Marka 5taas waxyaabood ayaan bishaan ugu talagalay inaan sameysto waa laga yaabaa inaad adiguna ka badan ay ku diyaarsan tahay. Waxaan rajeynayaa inay qorshahada ku wada hirgalaan. Sidoo kale waxaan kugula tali lahaa inaadan iska badan waxyaabaha aad qorsheysanayso naftaada yacni culeys badan aadan saarin. Sidoo kale waxaan rajeynayaa in waxyaabo badan oo aad wax ka baran karto wax ku siyaadinayo oo biri markaad Agoosto la tago aad leedahay oo inaan taas qorsheysto faa'iido iigu jirtay oo tan iyo tan aan ka dhaxlay arrintaas aan qorsheysto inaad dhihi karto aan rajeynaa. Marka muuqaalkayga maanta intaanu ku saabsan yahay waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalka iyo sida aad rukumatay kanaalka Cafiifo Farsamo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.